madaxweyne qoorqoor oo iska diiday inuu ka qayb galo caleemasaarkii ka dhacay magaalada baydhabo oo lagu caleemasaaray hogaamiyaha cusub ee maamulkaasi koonfur galbeed sheekh aadan maxamed nuur madoobe. madaxweyne qoorqoor ayaa gebi ahaanba diiday casuumaad rasmi ah ugu timid ee maamulka koonfur galbeed iyo villa soomaaliya kaasoo loogu sheegay inuu yimaado oo kasoo qayb galo caleemasaarka oo ka dhacay magaalada baydhabo ayaa iska diiday iyadoo dhanka kale uu ku farxay arrinkan madaxweynihii hore ee maamul goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen oo aaminsan inuu weli yahay madaxweynaha maamulkaasi ee koonfur galbeed. haddaba maxaa keenay in qoorqoor uu iska diido casuumaad rasmi ah uga timid ee maamulka koonfur galbeed iyo villa soomaaliya oo ah inuu ka qayb galo caleemasaarkaasi, iyo sidoo kale maxayse tahay colaada ka dhexeysa hogaamiye sheekh aadan maxamed nuur madoobe iyo sidoo kale madaxweyne qoorqoor. dhammaan faahfaahinta halkan ayaa kugula wadaagaya. haddaa nagu cusub tahay nagu soo biir laagareyso muuqaalka sheergarey asxaabtada sii gaarsii mahadsanid. aynu gudagalno. madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa gebi ahaanba iska diiday inuu ka qayb galo caleemasaarkii oo dhowaan ka dhacay ee magaalada baydhabo kaasoo lagu caleemasaaray hogaamiye sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo noqonaya hogaamiyihii ugu horeeyey ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo qaata magaca hogaamiye. axmed cabdi kaariye qoorqoor casuumaad rasmi ugu timid villa soomaaliya iyo koonfur galbeed ayaa iska diiday gebi ahaanba inuu ka qayb galo, isagoo taay ugu wacan tahay in axmed cabdi kaariye qoorqoor ugu abaalceliyey saaxiibkiisii madaxweynihii hore ee koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen oo weli aaminsan yahay inuu yahay madaxweynaha sharciga ee maamul goboleedkaasi oo koonfur galbeed. axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo sidoo kale hogaamiye sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa la sheegay inay wada hadleen kadib markuu ku casuumay inuu ka qayb galo, laakiin uu iska diiday qoorqoor si cadna ugu sheegay inuusan ka qayb galaynin maadaama ninkii ay saaxiibo ahaayeen uu ka maqan yahay maamul goboleedkaasi. waa warar aan si rasmia loo hubin, laakiin saxdii lasoo dhaafay wararka ugu badan ayay ka mid ahaayeen oo isa soo tiraya sheegaya in qoorqoor uu u diiday inuu ka qayb galo caleemasaarka uu si toosa ugu sheegay hogaamiyaha maamul goboleedka koonfur galbeed sheekh aadan maxamed nuur madoobe. qoorqoor ayaa la aaminsan yahay inuu u diiday inuu ka qayb galo caleemasaarkaasi saaxiibkiisa awgii cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo weli aaminsan yahay inuu yahay madaxweynaha sharciga ee maamul goboleedkaasi oo koonfur galbeed. wixii faahfaahin kale kasoo kordha halkan kala soco mahadsanid.